Soomaaliya waxay xiriir fiican la yeelatay midowga Soviet waxaanay iska fogeysay dalalka reer galbeedka ah iyadoo ku adeeganaysa mabaadiida hantiwadaaga cilmiga ku dhisan. Yusuf Ibrahim Ali Aburas wuxuu muddo dheer ka tirsanaa dawladda Soomaaliya waxaana ka wareystay arrintaasi inay jirtay Maxamed Siyaad Barrena inuu ahaa nin hantiwadaaga. hantiwadaag ma ahayn maxaa yeelay maanta ruuxa bini aadamka ah oo mabda aaminsanay waa la dhintaa mabdiisa waa la dhintaa runtii waxaan ku tilmaami karayaa wax kale ma ahe waxa weeye waa ninka baqabiila. haddaba maxaa uu taliskaasi u fulin waayey ballamadii uu qaaday? Cabdiqaadir Shire waxa uu ilaa sanadkan bilowgiisii qora ka ahaa wargeys ku hadli jiray afka xisbiga ee Ogaal wuxuuna bishii Julaay ee sanadkan soo saaray buug lagu magacaabo xeebta gerida. waxaana halkan Cabdiqaadir uu ka sheegay sababtii uu taliskaasi Soomaaliya u fulin waayey ballamadii uu shacabka Soomaalida u qaaday. waxaa dhacday laakiin ayaan daro in qofka baaqayay oo kooxda meesha qabsatay madaxda u ahaa oo Maxamed Siyaad ahaa uu baaqaas iyo tilmaamahaas dadku ay aad u soo dhaweeyeen iyo qof ahaan nuxur ahaan asagu waxa uu yahay inay aad u kala duwanayeen. laakiin waxaa dhinaca kaleeto si xoog leh u shaqaysay oo dabcan dhibaato weyn geysanaysay shakhsiyadda dhinaca dahsoon oo Maxamed Siyaad oo midda runta ah midda shaqaynaysa ah isla markaasna ku sameynaysa isburin wanaagga Soomaalida ugu baaqayo. 1977 Soomaaliya waxa ay dagaal la gashay dalka Itoobiya. dagaalkaasi ujeedadiisu ahayd in lagu xoreeyo dadka Soomaaliyeed ee dalka Itoobiya degan oo la magac baxay Soomaali galbeed dadka qaarkiina ay u yaqaaniin Ogaadeniya. Soomaaliya dagaalkaasi waa ay ku jabtay kadib markii Itoobiya ay u soo gurmadeen dalka midowga Soviet iyo dalka Cuba. siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliyana way isbedeshay iyadoo taliska Soomaaliya uu u janjeersaday dhanka reer galbeedka. khasaarihii iyo jabkii ka soo gaaray dagaalkaasi waxa uu tiiraanyo ku dhaliyey dadka Soomaaliyeed. rag ciidamada ka tirsan ayaa inqilaab isku da'ay laakiinse inqilaabkaasi waa uu fashilmay. markaana waxaa dhashay xisbiyo mucaarad ah oo dalka dibaddiisa laga sameeyey. xisbigaasi oo lagu dhawaaqay dalka Talyaaniga wuxuu ahaa Somali Democratic Front oo markii dambena xisbigaasi uu dhalay xisbiga la yiraahdo Somali Salvation Front oo uu wareegay dalka Itoobiya madaxna uu ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed. xisbigaasi markii dambe xisbiyo kaleetoo yaryar ayay isbahaysteen wuxuuna la magac baxay SSDF waana kii ugu horreeyey ee dagaal hubaysan ku qaada taliska Soomaaliya. laakiin 1981 waxaa magaalada tan London lagu aas-aasay ururka maanta ugu weyn ururada ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya ee la yiraahdo SNM. xasan aadan wadaadiid ayaa sheegaya ujeedada ururkaasi. ujeedada dhaqdhaqaaqan aanu samaynay waxa weeyaan annagoo qabna maanta inaanay dawlad ummadda Soomaaliyeed danteeda ahayn ay ka dhisan tahay Soomaaliya in dawladda lala dagaalamo oo la rido oo dawlad dimuqraatiga oo ku dhisan dadku waxay doonayaan oo aan qabiilo ahayn inaanu ka abuurno Soomaaliya haddii alla yidhaahdo. ururkaasi markii dambe wuxuu saldhig ka samaystay dalka Itoobiya waxa uuna yeeshay qayb xubin dagaal oo dagaal qaada. 1988 markii dawladda Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka heshiiyeen khilaafaadkii u dhaxeeyay ururadii mucaaradka ee joogay dalka Itoobiya waxaa qasab ku noqotay in laga bixiyo dalkaas Itoobiya. bishii May ee sanadkii 1988 ayaa xubnaha hubaysan ee SNM-ta ay dagaal Soomaaliya ku qaadeen ayagoo weeraray magaalooyinka waaweyn ee dalka waqooyiga ku yaala. markaasna ay xukuumadda Soomaaliya tallaabooyin militari ah kaga jawaabtay. dagaaladaasi khasaare weyn ayay u geysteen dadka reer waqooyi. wariyaha Yunis Cali Nuur ayaa arrintaasi xogogaal u ah. dabcan khasaare aad u ballaaran ayaa runtii ka dhacay. magaalooyinka burburay haddii aan eegno waa fara badan yihiin ilaa 16 magaalo ayaa maanta aan cidi deganayn. haddii aad tagto maalan Hargeysa oo ahaa magaalo madaxda labaad oo aan tegay anigu maanta magaalo ma aha. berri haddii la isdhaa dega waxaan lahaa hayndaab ha lagu sameeyo oo meel taariikheed ha noqoto waayo
waa burburtay boqolkiiba 60 dagaalkiibaa burburiyey intii ka dambeysay dagaalma burburine waa la farataystay bir ha lagala baxo jiingal ha lagala baxo waayiradii telefoonada kuwii xadhkaha waa magaaladu burburtay dhe imika waaba kayn oo roob baa ku dao caws baa ka baxay burco ayaa ugu ladan imika oo inkastoo boqolkiiba 50 ay burburtay laakiin haddana dad sii degan aad arkaysaa magaalooyinka kale Gabile iyo Arabsiyo iyo Oodweyne laftoodii waxay noqdeen dhul aan cid lahayn oo aan deganayn iskuuladii dhakhtaradii warshadihii qalabkii isgaarsiinka suuqyadii baac mushtariga wixii oo dhani ma jiraan